بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالin wanaagsan walaalada qaaliga isku soo noqod wanaagsan insha Allah waxaan rajeynayaa dhamaantiinba caafimaad meel walba oo joogtaan haduu Ilaahay yiraahdo walaalada qaaliga maanta waxaan noo wadaa maasko insha Allah iid ayaan soo dhaweynaynaa waxa waay gabdhaha inta iid la gaarin intimaa laga sii maasha Allah looga sii dhigo si ay isku dhex dhacaan hadhowti marka maanta waxaan sameynayaa habla yaryar ayaan u marsanayaa timaha insha Allah maaskero fiican oo maxaa iraahdaa tinta qoyaan ku siinayo dareyga ka biinayo insha Allah oo si fiican maxaa iraahdaa timaha kaaga dhigayo timo isku dhex dhacsan oo maasha Allah kaaga dhigayo marka asxaabteeda qaaliga idinka fiidiyoada noo share garay insha Allah like share comment marka walaalada qaaliga hadda halkan waxaan ku haystaa xabad ukun ah waxa kale oo ku haystay waa dacar iyo malab waxaan soo qaaday labada xabbo idin dhaafay kuwana waa shii butter subag waaye kaas iga dhamaaday marka waan isku darsaday in yar oo ku dambeysay iyo kale in yar ah waa kan inta ayaan ku dhalaaliyay marka walaaladii qaaliga ah halkan waxa iigu jira waa qasil insha Allah halkan waxaan ku haystaa waa olive oil waxaan kaloo haystaa yogurt marka intaas ayaan isku darsanaynaa iyo vitamin timaha ee kaniinka ahaa capsule-ka ahaa insha Allah ila socdo walaaladii qaaliga ah ما شاء الله تبارك الله أصحابتي هذا وان اسكو قصناي ويدي waxaa noo dhiman laakiin subagii iyo fitamiinka insha Allah ana waxa muhiim marka hore inaad si fiican isku dhexgeliso qasilka iyo maxaa iraahdaa alaabta kale aan ku soo shubay oo si fiican ah u qasto ma sha Allah maaskahan timahaaga hadii dry uu yahay dryga uu ka beenayaa hadii timo qalalan ay yihiin calashaan qaleelka uu kaaga beenayaa ma sha Allah timo qurux badan oo shining bixinaya ay ku noqonayaan hadana sida aragtaan waxaan ku darsanay subagii oo aan ku shubanay markaas subag waxaan ugu dambeysiyay waxaan diidayaa inuu iga marka alaabtadan ugu hor dari lahaa uu iga fariisto oo uu adkaado calashaan ileen subag waayo uu fariisanayaa Soomaa marka asxaabteeda qaaliga hadda subagii ayaan ku darsanay kaliya waxa noo dhiman waa fitamiinkii gadaal ayaan isagana kaga darsanaynaa insha Allah kadibna waxaan sameynayaa biyo diiran ayaan sixni ku soo shubayaa balaaran ama saxan markaas kadibna waan dhex dhigayaa si uuna iiga fariisanin inta timaha marinayo hadii kale uu qaboobaya isla markii uu fariisanayaa subaga oo wixii dhan waxay noqonayaan wax ka fariisto oo dhago marka si aanu iiga dhagin waxaan rabaa biyo yar oo diiran aan diyaarsanayaa insha Allah saxan weyn ayaan ku soo shubayaa oo balaaran saxankaana waan dhex dhigayaa insha Allah
waxaa iloobo kale dacartii oo aan ku darin iyadana haddaan ku darsanaynaa insha allah. waa iga sii dhammaanaysaa dacarta, intii iigu hartay ayaan hadda ku wada darsanayaa. adii qaando mulqaacad buuxda camal ee iska noqotay ama qaando wax yar dhiman. marka dacartana timaha aad ayay u bixisaa, way badisaa maasha allah ayay ka dhigaysaa. fitamiinkiina wuu noo dhiman yahay insha allah, gadaal ayaan kaga dari doonaa. asxaabteeda qaaliga idinkana waxaan idinka codsanayaa fiidiyoyada inaad noo sheer garaysaan, like share comment. waan iniga mahad celinayaa. walaalada nagu cusubna waxaan leenahay subscribe-ka nala dhaafina, gambaleelkana furto si aad uga mid noqotaan walaalada nagu xiran. jazaakumullah ayaan idin leeyahay dhammaantiinba insha allah. marka asxaabteeda qaaliga hadda waan soo qasanay, waad aragtaan. waxaa ii dhiman hadda fitamiinka 2 xabo ayaan soo qaadanayaa insha allah. 2daas xabo ayaan hadda afka ka jarayaa oo aan ku darsanaynaa insha allah. waa kaas aad aragtaan, 2daas xabo ayaan ku darsanayaa. marka 2da gabdhood ayaan u marinayaa, inta kasoo hartayna aniga ayaa marsaday. marka 3deennaba way noo gaartay maasha allah tabaaraka allah. hadhowtina 3 saacadood 4 saacadood kadib hadda afka ayaan ka jaraa insha allah. marka 4 saacadood insha allah, meeshaas qiyaas 4 saacadood ayuu u marsanaan doonaa insha allah. hore kama dhaqaysid, waxaa fiican timaha lafta inay ka gasho. marka maxaa iraahdaa tinta lafta ka gasho alaabtii u marisa ilmaha. marka insha allah bidnillaahi kariim 4 saac kadib meelahaas ayaan ka dhaqi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo insha allah. marka asxaabteeda qaaliga alaabteeni hadda sidaas ayaan u diyaarsanay, ila socda. haddana waan u marinayaa insha allah. 2da gabdhood ayaan u marinayaa madaxa hadduu ilaahay yiraahdo. hablaha walaaladeyna waxaan leeyahay tijaabiye insha allah. maaskigan aad ayuu u fiican yahay, idinkana ka warkeena. ani waaba ka warkeena, waana isticmaalaa. marka idinkana waxaan nii rajeynayaa. gabdho badan oo isoo weydiiyay ayaa jira timahayga qaleel iga ah, marka maxaa mariyaa xabiibtiyaal. marka timihiin hadduu qaleel yahay maaskaan oo kale wuu anfacayaa insha allah. wax wada qoynayo tinta ayaa ku jira oo maasha allah kaaga dhigayo. marka isla ogaada ayaan idin leeyahay. daawasho wacan walaalada qaaliga ah.